qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay nin ka shaqayn jiray meel hilibka lagu qalo. maalin maalmaha ka mid ah meeshii talaajadii hilibka la gelin jiray ayuu galay. markuu rabay inuu ka soo baxane way ku xirantay. miyuu dhiman doonaa mise waa la badbaadin doonaa? alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wala joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jimco walba iyo qiso cusub. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay nin ka shaqayn jiray meesha hilbaha lagu qalo ama lagu jarjaro 20 sano ka shaqayn jiray. maalin maalmaha ka mid ah wuxuu galay talaajadii weyneed oo hilibka lagu keydin jiray ayuu galay. asoo raba inuu hilibka soo bixiyo. qofku u dambeeyayna ahaa oo shaqada u dambeeyay ka soo baxay. talaajada markuu gudaha gal rabay inuu wax ka soo qaato waxaa dhacday ilaahay wuxuu qadaray talaajadii marka inay ku xiranto. talaajooyinkana saan ognahay waaweyn banaanka un baa laga fura laakiin gudaha kama furanto. ninkii talaajadii uu rabay inuu furo wuu garaacay wax maqlay ma laha. wuu qayliyay wax maqlay ma lahan. suu u qaylinayo u garaacay ninkii qabowgiga ka xoog batay meeshii ayuu ku dhacay wuuna suuxay. laakiin ninkii security-ga albaabka joogay oo ilaalin jiray markii nus saac ka soo wareegtay dadka shaqada ay ka baxeen guryahooda wada aadeen wuu soo baxay. wuxuu soo galay shirkadii uu soo dhaxgalay. wuxuu bilaabay inuu raadiyo sidii qof wax ka maqan yihiin ahaan meel walbuu raadiyay. markuu warehouse-ga wax ka dhax waayay wuxuu bilaabay marka talaajooyinkii inuu furo. talaajadan uu furay wax kuma jiraan, mid kale uu furo wax kuma jiraan. almuhim suu u furfuray markii dambe miduu furay waxaaba dhex yaalaba nin ayaa meesha dhex yaalo. ninkii uu qabtay meeshuu ka soo jiiday ambulance-kii waa police-kii wacay waa la yimid. ninkii waa la badbaadiyay isbitaalka la geeyay. almuhim ninkii sidii ayuu ku badbaaday. laakiin police-kii wuxuu bilaabay marka ninkan inuu investigation ku sameeyo. ninkan security horta yaa kuu sheegay ninkan inuu meel ku xiran yahay? yaa kuu sheegay nin inuu maqan yahay? maxaa kugu qasbay inaad wax raadisid? ma adaa ku xirtay? ma adaa rabtay inaad dishid mise adigaa tuug aheed oo kambanigaa rabtid inaad dhacday? markaasuu yidhi labadaba ma aha. ninkan wuxuu yidhi waa ninka keliya i dareensiiyey inaan ibni aadan ahay. maalin walba markaan uu soo galo meesha wuu isalaamaa, markuu baxana wuu isalaamaa. 10 sano qof isalaama markuu soo galo iyo markuu bax waa un asiga qof kale ma jiro. saaki markuu soo galay salaantiisa waa arkay laakiin hadda waa waayay wax isalaamay ma lahan. waxaan isdhahay marka waxaa qaldane maxaa qaldan? warehouse-gan soo galay albaab walbaan furay. talaajada markaan furay waxaan arkay ninkan oo meesha ku jiro. intaas kaliya waa markaan arkayna talaajadan ka soo bixiyay idinkana waa idiin yeeri. ugu dambeyntii walaalayaal qisadan waa qiso aad u qiimo badan, faa'iido badan ay leedahay. waxa ugu horeeyo oo aan ka faa'iideysanayna waxay tahay akhlaaqda wanaagsan. kun mutawaadican, kibirka iska daa. dadka haska weynaysiinin. dadka kale ixtiraam. ama waardiyaha ahaado ama madaxweyne ahaado dadka isku si u ixtiraam. ninkan waxa badbaadiyay waxay tahay salaantu ninka maalin walba salaamay. qof kale hadduu ahaa maba uusan raadiyeenba talaajada hadduu intaas ka badan ku jiri lahaane wuu dhiman lahaa. marka waxaan kaaga baahanay daliil oo ka jirto kitaabkeena ku jirto ama xadiis ku jirto. faa'iidada inaad ka soo qortid aad ka faa'iideysatay daliilna inaad u soo raacisid. jazaakumullahu khayran. بارك الله فيكم. ولالهنا كلا أسيكم بيا وإنه جمعة صوت إيه قصة عصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.